Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan meeshan ka salaamayaa bulshaweynta Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida dacaladeeda ka joogto. Walaalayaal, waxaan fariinkan iyo fideogan idoogu soo duubay. Waxaan ahay nin dhalinyaro walaalkiina oo caafimaad darro aada u liidata ku sugan dalka Turkiga. qalliimo aada u tiro badan iyo dadaallo badanna galay, balse guusha aan waafaqin. Haddana xaalkaygu aada buu u hooseeyaa caafimaad. xaalado aada u daran iyo qalliimo aada u daran ayaa isugaya. dalkan intiisa badanna laygu dhahay waxba lagama qaban karo, balse weli kama raja beelin. dalka gudihiisi baan ku jiraa, anigana meel loogama bixi karo. waddanka Jarmalkoo kale haddaad heli kartid gaadh bay u dhaheen. haddii aada weydo oodu meel kale aada u bixi weyso, qalliimaday u sameeyeen qeyb kaleo waxaan gelaynaa bay dhaheen. noloshaadu wax badanna aan mataqaanaa ka jarayno oo xubno kamid a aan oo hadda shaqeynhaya ay nagu qasbayso qalliinkaas dartii inaan meesha ka saaro, sida xubinta tarankoo kale oo dhibaato badan oo dhaawacyo qabta oon dhahayn meesha waxaan isku dayaynaa inaan qeyb kamid a aan ka saaro, qeybta keenta dareenkoo kale. sidaa awgeed qalliinka aada culus baa walaalay Soomaaliyaal u sugaya. hataa asaga laftigiisa haddaan galahayo ma awoodo. xaalado caafimaad darro aada u liidataan ku jiraa. waxaana nin dhalinyaro keligii weliba dalkan jooga oo isbitaalka ku jira sariirta ugu jiifo. Soomaalida halkan joogta nin caawinayso ay garab taagan tahay. walaalayaal, bisha soon fadligeeda iyo maalinta aakhiro culeyska ay leedahay inuu ilaahay ajar iyo xasanaad qof walba uu meeshuu ka tabanayo uu ugu bedelo. walaalayaal Soomaaliya, waxaan iga codsanayaa inaad soo garab istaagtaan oo nin kasta wuxuu u awoodo uun iga hagranin. mid dhaqaale hadday noqoto iyo mid waddankan aan ku jiro gudaheeda. meeshuu caafimaad ku jira ilaahay baa og, balse adduunku wuu sii kala horumaray xagga caafimaadka. nin walba meeshuu soomaalinimo igu geyn karo ama awoodiisa ama tu dhaqaale hadday noqoto. walaalayaal, isoo garab istaaga Soomaaliyay. waa intaasaan iga codsanayaa fideogan usoo duubay. dhaawacyo waaweyn baa qabaa. dhaawacyada miskaha waan ka jabanahay oo jab baa ku jira. hadeertan way kaban yihiin, inkastoo iyagu aan umalaynayo inay hawshooda in lagu guuleysan doono qeybtaas. waxaan kaloon iyaduna dhaawac ka qabaa macdanta xagga ragnimadka, kaadi haysta iyo kaliyaha. iyakuna dhaawacyo waaweyn baan ka qabaa. kaliyaha hadda mid baan dhaawacan dartii aan ii shaqeynin, maalin kasta la dhaqaa. walaalayaal, kaadi haysta waan ina tusayaa meesha ay ka socoto. kaadidu waxay ka socotaa meel kelida u dhow iyo xudunta agteeda. xubinta taranka waxay noqotaba ima shaqeynayso. marka walaalayaal, waxaan rajeynayaa inaad isoo garab istaagi doontaan. haddana waxaan ina tusayaa, inkastoon keligay aho qof kaamiro keliga iska duubi ahay, meelaha dhaawacyada siday yihiin barkood ayaan ina tusi. walaalayaal, halkan aada ujeedaan hadda waa meesha ay kaadida iga socoto. waa halkana la sameeyay dhakhaatiirtu marka dhakhaatiirtu markay in badan isku dayeen inay xubinta taranka kaadidu ka imaan jirtay halka ay sameeyaan way sameyn kari waayeen.
xubintu meesha way go-an tahay, dhaawac way qabtaa. 3 meelood buu mid walba dhaawac oga yeedhaa. Marka walaalayaal, hadda waxay ii sheegeen qalliin aada u culus inaan isku diyaar gareeyo oon markale ugu dambeysay. qalliinka haddaan anaku haddana ku guuldareysano meel kasta si kastoon mar dambe oon sameyno qalliin kale ma awoodi karayden inaan kugu fulino. qalliinka waxay ii sheegeen halbowlahan weyn ee bowdada mara inay soo saarayaan xididdo meesha ka maqan oo taranka ah. qeybta dareenka inay iga saari doonaan, oo ay dhaheen qeybta kaadidan isku dayeynaa inaan sameyno. marka labadan xidid kanshaawada soo gudbiya dhankiisa oo kale dareenka iyo miskaha ka imaada waan saareynaa, meesha waan ka saareynaa. maxaa yeelay labada xidid meesha kuma wada abuuri karo. marka halkan kaadi haystaa basaan isku dayeynaa. boqolkiiba intaan rajo aan kuu qabno inaan qalliinka noocaas aan geli karo waa 45. walaalayaal, arrinkaas ay haysata. hase ahaatee haddii kale aan laftiisa isku diyaarin lahaa dhaqaalihii awoodeed aan watay dalkan ilaa muddo badan baan hadda isbitaal ku jiray 6 bilood ah. wax alla wixii aan watay way halkan igaga dhamaatay. cid kale oon garab ka helayo meel aan ilaahay iga soo caawiyana ma jiro. qaraabi iyo ehella waxay wateen halkaasaan sahaygo ku ahay. marka walaalayaal, Soomaali waxaan iga codsanhayaa dad wanaag lagu yaqaanaatiin oo isgarab istaaga dadka walaalkooda oo liita. walaalayaal, isoo caawiya oo iga soo jawaaba kurbada ee haysa. inuu ilaahay iga faydo iisoo duceeyo bisha Ramadaan waa mid fadli badan. midda labaad, inaad isoo garab istaagtaan baan rajeynayaa. ilaahay wuxuu yidhi qof kurba adduunka dushiisa ooga fayday ana kurbooyin aakhiraan ka faydi. inuu ilaahay inaga faydo oo qof walba waxa uu taban hayo inuu ilaahay ka dulqaado. in alla intii videogan fiirsataa intii wax qaban karin oo awood dhaqaale aan bixin karin ducada igu soo kaalmayso. inta kalena ducadii iyo deeqba waxay qaban karaan ha isku soo kay dareen. walaalahayga Soomaaliyeed baan videogan usoo wada duubay meel kastoo joogaan. qof alla qofkii fiirsada qofka kale walaalkii uu malaynayo inuu maanta ku dhaawac ha la wadaago. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.